bal ila daawo oo ila arag cadaawada iyo nacaybka ka buuxa 80 jirkan haysta PhD-da ee aqoon-yahanka ah ee isku sheegay inuu yahay professor Soomaaliyeed kaasi oo xaqiraya taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimadda Muqdisho ka jira ila daawo muuqaalkan kadibna waxaad ogaanaysaa halka Soomaaliya laga haysto kan la leeyahay magaaladu waa nabad hadday magaaladu nabad tahay ma ay joogeen ciidamadan jidadka jooga iyo baalahan yaala jidadka way tagi lahaayeen madaxweynahana waa tii lagu abaaray isagoo jidka guriga ka soo baxaya villa Soomaaliya marka waa runo qaraxidii weynaayd ka dhacay soobe way kuwa kale may dhicin waxaan filayaa inaad si hagaagsan u daawateen muuqaalka Professor Cabdi Samatar oo ku sheegayo in Muqdisho aysan amni ka jirin sidoo kale waxa uu xaqirayaa kaalin walba oo dawladda Soomaaliya ay geysato wuxuu sidoo kale dadka negative uga dhax sawiraya dadaal walba oo la bixiyo kaasi ma ahan oo kaliya xaqiraad dhab ah ee waa nacayb iyo cunfi waxaana dhibaya amniga magaalada caasimadda ah Muqdisho professorka sheegaya in ciidamo ay magaalada Muqdisho dhex eegaagaan sidoo kale amni uusan jirin sidoo kale dhibaato walba ay taagan tahay 5 sanadood ka hor ma aaminaysaa inuu muxaafad u ahaa dawladda dalka haysatay sidoo kalena mar walba waxa uu ummadda Soomaaliyeed u sawirayaa in Professor Cabdi Samatar uu yahay mid kamida dadka Soomaaliyeed ee ugu aqoonta badan xaqiiq ahaan markii loo hadlo inkastoo dadka qaar ay qabaan aragtidaasi ka duwan laakiin maxay tahay sababta ninkan odaga ah amniga maanta Muqdisho ka jira uu xaqirayo su'aal kasta oo laga weydiiyay amniga Muqdisho horumarka dawladnimada iyo wax walba oo ku saabsan dawladnimada Soomaaliya ee casriga ah waxa uu sheegayaa in waxbana aysan ka jirin taa bedelkeeda ninkan wuxuu ka soo jeedaa gobolada waqooyi ee Somaliland mar ayuu Muqdisho waxa uu ka ahaa wakiil u qaabilsan dawladda Soomaaliya arrimaha bariga Afrika si guudna hadda waxa uu yahay mararka qaar professor ka hadla arrimaha Soomaalida laakiin mar walba waxa la rumaysan yahay in uu ku jiro nacayb gaamuray oo Muqdisho u qabo haddii professoradii wadanku ay sidaas u hadlayaan ayna dhiirigelinayn dawladnimada la gaaray iyo amniga caasimadda sideed Soomaaliya dawlad ku sii doonta falan adigu aragtidaada ku aadan arrimahaas qaybta hoose ee faalada commentiga noogu xariir muuqaalkan fogiyo gaarsi saaxiibadaada war ku maasantaa la socoshada ila jaanqaadka wararkayga kan la leeyahay magaaladu waa nabad hadday magaaladu nabad tahay ma ay joogeen ciidamadan jidadka jooga iyo baalahan yaala jidadka way tagi lahaayeen madaxweynahana waa tii lagu abaaray isagoo jidka guriga ka soo baxaya villa Soomaaliya marka waa runo qaraxidii weynaayd ka dhacay soobe way kuwa kale may dhicin laakiinse waxa weeyaan dawladdu ma u adeegaysaa dadka haddaan soo noqdo marka daaraha badan ee la dhisayo boqolkiiba Soomaali hadday ugu badan tahay 5 maaha waxa daaruhu dhisanaya inta badan oo daaraha waxa dhisanaya laga yaabaa qayb ahaan dadka dibadda joogeen wadanka gudihiisa joogin